الرحمن الرحيم جمع wanaagsan soo dhawaada saaxiibayaal meel walba waa joogtaan ku soo dhawaada mar kale qayb kale oo kamid ah barnaamijyadeena oo aan inta badan diiradda ku saarno wararkii soo kordhay saacadihii la soo dhaafay qodobada qaybtan aan ku eegi doono waxaa kamid ah maxaa ka dhacaya magaalooyinka Qaahira iyo Dawxa kulanka qarsoodiga ah ee magaalada Qaahira ku dhex maray taliyaha hay'adda sirdoon ee dawladda Masar iyo madaxa siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya maxay ka wada hadleen kadib kulanka maanta oo jimcaha dhex maray madaxda dalalka Qatar iyo Masar ayaan sidoo kale eegi doonaa tirada askarta ka dhaawacantay Israa'iil iyo kuwa ka geeriyooday saacadihii la soo dhaafay tani markii howlgalka dhanka dhulka ay bilaabeen wargeysyada Israa'iil oo banaanka keenaya macluumaadii arrinta ku aadan ayaan eegi doonaa hadalka dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga kulanka uu ka qayb galay madaxweynaha Iran ee ka dhacaya dalka Sacuudiga Anthony Blinken muxuu ka yiri magaalada New Delhi qodobo kale oo muhiim ah ayaa raaci doona ay kamid yihiin gantaalada ku dhacay magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iil iyo qodobo kale soo dhawaada mar kale kamid noqon saaxiibadeena aad baad u mahadsan tahay Marwa Fertility Center xarunta daweynta xanuunada keena dhalmo la'aanta casrigan fadlan booqo xaruntooda ama la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsanid jimcihii shanaad oo xiriir ah gantaalo ayaa weli ku dhacaya marinka Gaza waxaana soconaya burbur xoogan oo dadka shacabka ay la kulmayaan sidoo kale waxaa la arkayaa kumanaan dad ah oo saddexdii maalin ee la soo dhaafay gabi ahaanba ka baxaya dhinaca waqooyi ee marinka Gaza iyagoo ku wajahan dhinaca koonfureed ee magaalada Gaza 187 ruux ayaa la sheegay daanta galbeed inay ku dhinteen tan iyo 7 Oktoobar maadaama halkaasi ay ka dhacayaan ololo la doonayo in dadka dhalinyarada ah lagu xiro oo ciidamada Israa'iil ay bartilmaameedsanayaan xarumo kala duwan isku dhaca dhex maray dadka rayidka halkaasi ku sugan iyo ciidamada Israa'iil ayaana sababay 183 ruux in la diiwaan geliyo in halka ay ku geeriyoodeen wargeyska lagu magacaabo Yedioth Ahronoth wuxuu maanta oo jimcaha uu soo bandhigay in 100 askari ay dhaawacyo halis ah ay soo gaareen tan iyo markii howlgalka dhanka dhulka uu bilowday sidoo kale wadarta guud ee dadka dhaawacmay labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxa uu ku tilmaamay inay gaarayaan 250 askari waa macluumaadkii ugu horeeyay oo ka soo baxa wargeysyada Israa'iil wargeyskan inta badan wuxuu banaanka uu soo dhigaa macluumaadyada arrimaha ciidanka Israa'iil iyo sidoo kale mas'uuliyiinta Israa'iil la xiriira telefishinka Al Jazeera ayaa baahiyay macluumaadkan isagoo oo soo xiganaya wargeyska Ahronoth lagu magacaabo ee Israa'iil ka soo baxa inta badan wargeysku wuxuu leeyahay askarta waxay dhaawacyo ay ka soo gaareen toogashada tooska ah iyo sidoo kale dabka ka kacaya gantaalada lagu garaaco taangiyada ay la socdaan ciidankan madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas ayaa waxa uu shaacu ka qaaday inay diyaar u yihiin inay la wareegaan amniga guud ahaan ee marinka Gaza haddii xaaladdu ay degto waa mid kamid ah dalabaadka miiska u saaran qaar kamid ah dalalka gobolka oo doonaya in marka dagaalka Xamaas uu idlaado kadib amniga ay iyaga gacanta ay ku dhigaan Maxamuud Cabbaas ayaa hadalkan maanta jeediyay iyadoo toddobaadkii hore la sheegay arrintan inay isku fahmi waayeen wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka Anthony Blinken kadib markii uu booqday magaalada Ramallah oo dhinaca daanta galbeed ama Qudusta bari ah halkaas oo kula kulmay Maxamuud Cabbaas saacadii ugu dambeeyay maxaa soo kordhay marka guutada Al-Qassam waxa ay gantaale ku garaaceen magaalada Tel Aviv iyo xarumo kale oo dhowr ah hadii aan ku hormarno waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen deegaanka Aldiq lagu magacaabo waxa kale oo ay sheegeen deegaanka Nerim iyo xarumo kale oo kamid ah goobihii ay weerareen bilowgii dagaalka inay bartilmaameedsadeen waxa kale oo ay shaaciyeen in gantaaladaas oo ahaa dhowr gantaal in ay qasaare ay ku gaarsiiyeen ciidamada Israa'iil halka ku sugan cadawga halkaasi jooga oo ah dhanka koonfureed ee marinka Gaza iyo xarumo kale waxaan ka burburinay tiro kamid ah gaadiidkooda dagaal sidoo kale waxaan bartilmaameedsanay saldhigyadooda sidaas ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dagaalyahanadan dhinaca kale dhawaaqa digniinta ayaa markii ugu horeysay muddo 3 maalin kadib si toos ah looga maqlayaa koonfurta iyo bartamaha Israa'iil magaalada Ashdod iyo magaalooyin kale jimcaha maanta waxaa la sheegay in seeriga digniinta laga maqlay sidaas oo kale gantaalo ay laga tuuray dhinaca waqooyi ee magaalada Gaza waxaa la sheegay in ay ku dhaceen magaalada Tel Aviv iyo deegaanka lagu magacaabo Rishon Lezion halkaas oo 2 ruux la sheegay inay ku dhaawacmeen waxaa la arkay sidoo kale gaadiidka ay wataan dadweynaha magaalada Tel Aviv oo gabi ahaanba baakin la geliyay kadib markii seeriga digniinta uu isqabsaday waxyaabaha kale ee soo kordhay saacadii ugu dambeeyay waxaa kamid ah dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salman waxa uu ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka soconaya deegaanada dhulka walaalaha waxa kale oo uu sheegay in laga fakaro in barakicin qasab ah lagu sameeyo dadka deegaanka oo lagu duulay markii hore Maxamed bin Salman waxa uu leeyahay waa muhiim dagaalka in la joojiyo sidoo kalena la joojiyo barakicinta qasabka ee lagu hayo dadka shacabka ah sababtoo ah saddexdii maalin ee la soo dhaafay dadkii ugu badnaa ayaa ka barakacay dhinaca waqooyi iyagoo u jeestay koonfurta magaalada sidoo kale wuxuu cambaareeyay xadgudubyada ka dhanka dadka rayidka ah oo ay geysanayaan ciidamada gumaysiga
sida uu hadalka u dhigay. ma jiro wax biyo ah, wax cunto ah iyo wax koronto ah. xaaladda guud ee xarumaha caafimaadka ee magaalada Gaza ayaana u muuqanaysa in xaalad halis ah ay galayso. agaasimaha guud ee cisbitaalada marinka Gaza ayaa shaaca ka qaaday in dhammaan cisbitaalada magaalada ay mar walba ay la kulmaan duqeymaha ka imaanaya diyaaradaha dagaalka ee gumaystaha. waxaan diyaar u nahay buu yiri inaan adeeg bixinno, laakiin nooma suuragelayso mararka qaarkii maxaa yeelay dhammaan howlihii aynu qaban lahayn hawada ayay ka sii baxayaan oo dadka dhaawaca xitaa iyaga oo dhaawacan ayay adeeg xumo daraadeed u geeriyoonayaan. saacadii la soo dhaafay 13 ruux ayaa ku shahiiday, kuwa kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii cisbitaalka Al-Shifa la sheegay inay gantaale ku dhaceen. sidoo kale ciidamada ka dagaalamaya koonfurta Lubnaan ayaa waxay shaaciyeen in 7 ka mid ah dagaalyahanadooda ay geeriyoodeen kadib markii koonfurta Lubnaan Israa'iil gantaale ku garaacday. ciidamada Xisbullah ayaa sheegay in dhankooda ay bartilmaameedsadeen xarumo kala duwan oo ciidamada Israa'iil ay lahaayeen. waxa kale oo ay cadeeyeen in guulo ay gaareen. dowladda Qatar waxa ay si kumeel gaar ah sheegtay inay doonayso inay kaga shaqeyso in la gaaro xabajoojin kumeel gaar ah. xabajoojintaas oo la sheegay inay muhiimad gaar ahaaneed u leedahay dadka rayidka ah. ra'iisul wasaaraha dowladda Qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa sheegay in xabajoojin kumeel gaar ah ay tahay wadada kaliya ugu wanaagsan ee la rajeynayo inay dhisto hanaanka guud ahaan ee maxaabiista la isku dhaafsanayo. xabajoojintaas ayuuna sheegay maalmaha soo socda inay doonayaan in laga dhaqangeliyo marinka Gaza. wargeyska Washington Post ayuu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar waxaana uu yiri waxaynu rajeynaynaa in wada hadallada aynu wadno ugu yaraan ay noo horseedaan guulo la taaban karo. sidaas oo kale magaalada New Delhi waxaa ku hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka. 9 maalin ayuu socdaal diblomaasiyadeed oo gobolka uu ku bixinaya Anthony Blinken waxa uu sheegay gaaridda xal nabadeed inay ku jirto in labada dhinacba ay yeeshaan laba dowladood waana Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in waajib ay tahay in la difaaco dadka rayidka ah ee waxyeelada ay soo gaarayso. dhinaca kale taliyaha guud ee ciidamada Israa'iil Herzi Halevi iyo agaasimaha guud ee hay'adda sirdoon ee gudaha ee Shinbet ee Roner Par la yiraahdo ayaa la sheegay in maalintii shalay ay gawaarida qafilan ay ku tageen bartamaha magaalada Gaza, waxaana la sheegay inay qiimeynayeen howlgalka dhanka dhulka ee soconaya. telefishinka Channel 13 ayaa baahiyay macluumaadkan. sidaas oo kale wargeyska Yediath Ahronos ayaa sheegay in agaasimaha guud hay'adda sirdoon ee gudaha Israa'iil ee Shinbet loo yaqaano iyo taliyaha guud ee ciidamada Israa'iil ay tageen magaalada Gaza iyagoo gawaarida qafilan la socda, halkaasina ay kula kulmeen saraakiisha iyo ciidamada howlgalka dhanka dhulka ah hagaya. dhinaca kalena maxaa ka dhacay magaalada Qaahira? waxaa lagu waramayaa magaalada Qaahira inuu kulan uu ku dhexmaray taliyaha hay'adda sirdoonka ee dowladda Masar iyo sidoo kale madaxa siyaasadda ee Hamas Ismaaciil Haniya. kulankan waxaa la sheegay in diiradda lagu saaray arrimo dhowr ah, si gaar ahaaneed waxaa looga hadlayay xaaladda ka taagan marinka Gaza. ilaan arrimo kale oo laga hadlayo waqti xaadirkan miiska ma saarno. taliyaha hay'adda sirdoonka ee dowladda Masar Abbas Kamil ayaa waxaa sidoo kale uu la kulmay wafdigan oo qayb uu ka ahaa Khalid Mashcal, madaxa siyaasadda arrimaha dibadda Khalil Al-Haya iyo Ismaaciil Haniya. dhammaantood waxaa la sheegay in lagala hadlay arrinta ku saabsan dagaalka marinka Gaza, isdhaafsiga maxaabiista iyo arrimo kale. booqashadan ayaa noqonaysa markii ugu horeysay wafdi ka socda Xamaas ay ku tagaan magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar tan iyo 7 Oktoobar markii dagaalka uu bilowday. maalmihii ugu dambeeyay wada hadallo dhanka telefoonka ayaa dhacaya oo mas'uuliyiintan u dhaxeeyay, laakiin ugu dambeyn waxaa lagu yiri telefoonku uu nuga adeegay bal noo kaalay. booqashadan waxaa kale oo ku soo beegmaysaa xilli magaalada Qaahira ay kulan ay ku yeesheen taliyaha hay'adda sirdoonka ee Masar, taliyaha hay'adda sirdoonka Mareykanka ee William Panis iyo mas'uuliyiin kale. sidoo kale saacado kadib waxaa kulan yeeshay taliyaha hay'adda sirdoon ee dowladda Masar Abbas Kamil iyo wafdigani ka socday Hamas. waxaa kale oo xigay in kulan gaar ahaaneed ay yeesheen madaxweynaha dowladda Masar Abdel Fattah al-Sisi iyo agaasimaha hay'adda sirdoonka ee dowladda Masar William Panis. waxaana muuqanaya ugu yaraan wax uun inay karsamayaan. arrinta ugu weyn ee laga wada hadlayana waa xabajoojin, inkastoo xabajoojinta iyo qaabka loo rabo la isku fahmi la'yahay. waxaa soo baxaya macluumaad ku saabsan in ugu yaraan laga shaqeeyay in maalintii 4 saacadood oo xabajoojina la dhaqan geliyo, inkastoo Israa'iil ay beeninayso arrimahaas oo idil, oo waxay leeyihiin arrintan waa mid farsamo ah oo Hamas ay ku soo noolaan karayso. dhinaca kulanka haddii aan u soo laabano, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda Masar ayaa xogtan sidoo kale banaanka keenay. waxa uu yiri waxyaabaha sida weyn diiradda loo saaray waxaa ka mid ah in Hamas ay aqbasho dhexdhexaadinta dowladda Masar ay ka garab socoto dhexdhexaadinta dowladda Qatar si loo soo afjaro dhibaatada haysata Israa'iiliyiinta u xiran Hamas iyo sidoo kale dhibaatada dadka rayidka ay la kulmayaan.
maanta oo jimcaha sidoo kale waxaa lagu waramayaa in kulan gaar ahaaneed ay yeesheen amiirka dowladda qatar iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda masar cabdifataax al-siisi. cabdifataax al-siisi iyo amiirka dowladda qatarna waxay ka wada hadleen wadahadaladii ugu dambeeyey ee qaahira iyo dowxa ka wada dhacay sida xalka uu noqon karayo iyo ugu yaraan doorka iyaga ay ciyaari karayaan. qatar ayaa xooga saaraysa wadahadalada ee ku aadan siideynta maxaabiista, haddase dowladda masar ayaa kusoo biirtay. arbacadii lasoo dhaafay warbaahinta masar waxay sheegtay iyadoo soo xiganaysa ila xogogaala in dowladda masar ay ku dhowdahay in marinka Gaza laga gaaro waxa ka soconaya xabajoojin bini'aadanimo oo la isku dhaafsanayo maxaabiista labada dhinac ay kala haystaan. saacadaha soo socdana war waa uu soo bixi doonaa. madaxweynaha dowladda Iiraan Ibrahim Raisi waxa uu socdaal uu ku tagay magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Sacuudiga, halkaas uu kaga qayb galaya maalinta biri ah kulanka degdega oo yeelanayaan ururka iskaashiga Islaamka iyo dowladaha kale ee gobolka oo looga hadlayo arinta deegaanada walaalaha iyo waxa ka soconaya. saacadii ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil waxa uu yiri weerarka ka dhanka Xamaas waqti dheer ayuu qaadanaya, laakiin waxaan rajaynaynaa inaan soo gabagabayn doono dagaalka soconaya. guutada Xamaas ka garab dagaalantana waxay leeyihiin waxaan sii wadnaa bartilmaameedsiga iyo duqeymaha ku garaacina marinka Gaza. ku dhawaad 10 kamid ah gantaaladeena ayaa halka ku dhacay, inkastoo qaarkood la burburiyay, haddana kuwa kamid ah nidaam difaaciidka Iron Dome waxa la sheegay inay ka baxsadeen. waxyaabaha ka soo kordha mar walba dagaalka soconaya iyo kulamada iyo dadaalada soconaya waan kula wadaagi doonaa insha Allah. waad mahadsantahay jimco